Soomaalidii hore maxay caabudi jireen diinta Islaamka ka hor? Soomaalidu waxay rumaysnaayeen hal ilaah oo la yiraahdo Waaq oo inta badan loo yaqaanay Eebbe. Diintan oo ay sidoo kale la wadaageen dadyowga kale ee Kushitiga ah sida Oromada waxay ku dhisnayd ilaah kaliya. Ma aysan caabudi jirin asnaam ama sanamyada gacanta lagu sameeyo. Waxay lahaayeen ducooyin iyo baryo ay si toos ah u weydiistaan Waaq roobka, barwaaqada iyo guusha. Goobaha barakaysan waxay aaminsanaayeen in meelaha qaarkood sida geedaha waaweyn ama buuraha dhaadheer ay yihiin goobo barakaysan oo ducada laga aqbalayo. Magacyada Ilaahay ee haray inkasta oo Islaamku yimid, haddana erayadii hore qaarkood waxay ku hareen luqadda Soomaaliga iyagoo loo bedelay macnaha Islaamka. Eebbe magacan wuxuu ahaa magac hore oo loo adeegsan jiray Waaq, maantana waa magaca ugu caansan ee Alle Subxaanahu wa Tacaala loogu yeero Soomaali ahaan. Waaq magaca wuxuu ku haray magacyada magaalooyinka ama qabaa'ilka qaarkood sida Ceel Waaq, Caabud Waaq ama Gal Waaq. Waxyaabaha ay ixtiraami jireen Soomaalidii hore waxay aaminsanaayeen in dabeecadda iyo ruuxdu ay xiriir leeyihiin. Ayaanta waxay rumaysnaayeen maalmaha nasiibka leh iyo kuwa ba'an. Bisha iyo xidigaha ayay wax ku xisaabin jireen. Saadaasha waxay lahaayeen dad ku takhasusay akhrinta xidigaha iyo calaamadaha si ay u ogaadaan waxa soo socda. Saaxiibayaal, la socda qaybteena xigta. Waxaan diiradda saari doonaa taariikhdii Soomaalida.